weedha iyo saca naas adag maxaa kulmiyey maamahdii ahayd maxaa kulmiyey in ra'iisul wasaare Roble uu ka dago galmudug caasimada galmudug ee Dhuusamareeb isagoo usii boqolaya ama si usii gudbi doona hadii la safarkiisu ilaa ay gaalkacyo iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe inuu asaguna ka dago garow maxaa xiriir hoyeeleen ay leeyihiin halka oo ka soo iftiimay waxaan ogeyn in dhawaalaba gaar ahaan bilihii 8 bishii August oo kale ama September in khilaaf xoogan oo dawladda Soomaaliyeed gilgilay oo ka dhax qarxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ilaahay mahadi waxa lagu guuleystay qaybo kamid ah inay madaxweynaha ra'iisul wasaarihiiba ay dhameystaan iyagoo maaragta dana fara badan la isdhaafsanayo mar kale ayaa waxa maaragta soo bidhaamaya in maaragta uu jiro khilaafaad kale oo soo ifbaxay sida in ra'iisul wasaaruhu uu isku dayay ama damcay ama damacsan yahayba in uu xilka ka qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish ma sharci buu haystaa oo maaragta qaanuun buu leeyahay inuu ka qaado awoodaas ma leeyahay iyo malahan waa dood kale oo maaragta sharciyeed oo meel ku xariiqan hadii ahaatee siyaasad ahaan ma suurto gali kartaa xilliga maanta la joogo maya dabcan halka meel ka dhow ayuu maaragta gaari waayay ra'iisul wasaaruhu oo ku guul dareystay isagoo markii hore Fahad Yaasiin oo halka joogay Nisa oo xilka ka qaadi maagay markii ugu dambeysana uu Farmaajo ku guuleystay inuu isagu qof uu isagu wato inuu halkii uu qutumiyo uu dhigto gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ah xil siyaasadeed aad u weyn oo caasimadii dalkana hogaamiya ayaa maaragta way ku adkaan doontaa ay leeyahay in ra'iisul wasaaruhu halkaana uu ka soo wax ka maaragta ka dharaandhiriyo isagoo meel ka hooseeya ku guuleysan waay ra'iisul wasaaruhu maanta ayuu safray meesha la yiraahdo Dhuusamareeb caasimada galmudug ninka la yiraahdo Axmed Madoobe saako ka soo safray meesha la yiraahdo Kismaayo asagoo ku wajahan garow u ka dagay fursadihii waayihii hore suurtagalka ahaa in la isku arko ayaa maaragta muddooyinkan dib u dhaca ku yimid fursadaas ayaa hadda la filayaa in uu mar dambe dib u wanbaqaadaan waxa laga yaabaa marka inay kulmaan ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada waxa shir loogu magacaabo iyadoo uu hareer socdo shirar duceedyo ay leeyihiin maaragta nimanka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo Danni iyo ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha isagoo halka ka raadinaya fursad kale oo Farmaajo kula dagaalami karo ama uga maaragta guuleysan karo ama waxyaalo kale inuu halka ka raadiyo oo kula gorgortami karo Farmaajo waxyaalaha halka ka soo baxay ama xogaha aan ka helayno ayaa tilmaamaya in uu gaashaan buuraysi la sameysanayo nimanka kablalax ee maaragta Danni iyo maaragta ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyagu markii hore iska ahaa buda gooni u tuman mar walbaba dawladii dhalataba gooni daaqa ka ah halka ayuu ra'iisul wasaaruhu ku biiri doonaa sababtoo ah meelaha kale sida Galmudug ama Hirshabeelle ama Koonfur Galbeed ama Cumar Finish afarta dawlad goboleed ee soo hartay way ku adagtahay waana ku adkaan doontaa fursad inuu ka helo halka intuu Farmaajo uu halka uu soo fadhiyo ra'iisul wasaaruhu halkaas uu ka raadin doonaa waxyaalo badan isla qaada dhigi doonaan waxyaalihii lagu xallin waayay taleefanka Axmed Madoobe iyo Danni iyo Roble waxyaalihii ay taleefanka ku xallin waayeen ayay rajeynayaan inay folkafool uga heshiiyaan ay iska raacaan sidii ay maaragta gebi uga laalaadin lahaayeen Farmaajo ama ay karkaarka u idaarin lahaayeen hadaba suurtagal ma tahay in ay wax isku biiriyaan awood ah Farmaajo ay uga hortagi karaan waxa muuqata xeelleerayaashu ay sheegayaan in maaragta wax dambe awood dambe oo Farmaajo loo adeegsado inaysan harin
xarig dambe dhuujin dambe uma harin boolkii awalba farmaajo iyo dani ama nimankaas kabla la leeyahay farmaajo awalba waxay kala taagnaayeen laba koone wax dambe oo meel dambe farmaajo kala dagaalamaan dabcan ma lahan oo labadii bilood isaga farmaajo iyo ninka la yiraahdo Rooble is hayeen wax badan oo kusoo biirin waayay marka maanta waxaa muuqata ama la leeyahay la sheegaya in aysan waxba isku soo biirin doonin waana sida muuqata inta waxaan raacin lahaa intuu shirku ka dhici karaa la isku arki karaa taasuna waa su'aal kale halkee la isku arki karaa shirka maamulgoleed si uu u helaan fursad isugu helaan shirro duceedyo waxaase suurtagal ah in hillaac biyihiisu cadaystaa ra'iisul wasaaruhu halkan ka duulo ama gaalkacyo la isku arko ama guriga ra'iisul wasaaruhu tago maaragtaa halkaa oo looga yaqaano mudane cashadiid waxaan rajeynayaa insha allah in aan maaragtaa aan qodob maaragtaa wixii dambe oo soo baxa ama xogaha dambe aan idin soo gudbino walaalayaal mar kale waxaan leeyahay waxaad nagala socotaan Ataye Media fadlan haddaad nala joogin subscribe ka saar asxaabtan u gudbiya haddii kalena walaalayaal sii gudbiyo isgaarsiiya waa mahadsantihiin dowladnimaan idin rajeynaya Soomaaliya ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.